قبلها اسكحرن شن سنة اسكحرن waxay u xiran tahay mataqaanaa nima wuxuu yiraan ku guursado wallahi bilaa ana u tagay xabsiga u tagay garsoorka meesha uu xumaayo maraya sababtoo ah dhilka iyo waxa mataqaanaa hoteelada ka socda hadda waa garsoorayaashii baa hoteelada jooga cid kale joogto ma garsoorayaashii iyo dad laalush u wado iyo dad mataqaanaa maanta lacag u wado baa hadda shaqeeya bas waxaan leeyahay oday Soomaaliyeed baana war qolada garsoorkana cadaalad sameeya baan leeyahay dadka waxaanay lahayn iyo guryo aan lahayn haysta ee looyarada u qabsaday dadka laaya looyarada u qabsana war Ilaahay ka baqa oo cadaaladda iyo midnimada iyo wadajirka iyo qaranimada Soomaaliyeed la tixgeliyo wala dhimanaya dadkan la yiraahdo mataqaan lama ooyaanka oo ama qolo dadkooda ay soo raadineen ama dadkooda mataqaan maartay ay ka warhayn inay xiriireen dadkaas mataqaan maartay gedka gacguliyaasha lagu bedelaaleed oo tiirka la geeyo marka qaar maalmihii ugu dambeeyay waxaa kordhayay qayladhaanka iyo ka soo yeerayay bulshada Soomaaliyeed ee la xiriira qaabka ay wax u maamulaan garsoorka guud ee dalka waxaa jiray dad tabashooyin ka muujinaya qaabka ay wax u maamulaan garsoorka guud ee dalka shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda Muqdisho ayaana nooga waramay bal tabashooyin iyo dhibaatooyin ay ka qabaan garsoorka guud ee dalka ayagoo noo sheegay inay jiraan dhibaatooyin ay kala soo kulmaan xilliyada ay cadaaladda u doontaan garsoorka guud ee dalka sidoo kale waxa ay noo sheegeen inay jiraan dad aan la horgeyn maxkamadda oo cadaalad darro iyo sharci darro ugu xiran xabsiyada guud ee dalka Soomaaliya meesha ay ka warartay waa garsoorka aniga maxkamadda waa tagay waxaan arkay islaan waayeel iska ooyis islaantii markaan wareystay oo hooyo maxaa kugu dhacay waxay tiri laba boos oo ku lahaa degmada Boorneer oo 50 sano ka hor aan deganaa jiray ayaa mataqaanaa maartay boosna waan deganaa jiray boosna mataqaanaa maartay geeda igu yeelay tiray iska harsan jiray iska hargali jiray nima inta yimid oo hadii Ilaahay ku roon yahay abgaalo waxay isla ah ayaa wuxuu la soo heshiiyey saraakiil iyo abukaatayaal iyo muxuu ahaa niman maxkamadda jooga iyo wax walba ayuu mataqaanaa inta lacag soo siiyey oo islaanti dacwad soo oogay oo islaanti mataqaanaa maxkamadda la yiri tag maxkamadda waa laga qabaa dukumeentiga la kaalay oo dukumeentigeeda la soo qaaday oo dukumeentiga laga sawirtay oo ninkii koobiga la siiyey koobigii lacagta laga sawiray la siiyey ninkii tuugii ayaa mataqaanaa waxa islaantii booskeedii u banaanaa ee ku hargeli jirtay ee hadii la ku nasan jirtay oo wuxuu ka dhisay guri fil ah garsoorka meesha uu xumaayo maraya sababtoo ah dhilka iyo waxa mataqaanaa hoteelada ka socda hadda waa garsoorayaashii baa hoteelada jooga cid kale joogto ma garsoorayaashii iyo dad laalush u wado iyo dad mataqaanaa maanta lacag u wado baa hadda shaqeeya bas cid kale shaqeysa ma waxaan aaminsanahay gudoomiyaha maxkamadda sare in la bedelo waxa weeye garyaqaan Axmed baashe in la bedelo cidni weyn oo wax garada oo waxa weeye soo shaqeeyay oo waxa weeye 4.5 ka in la keeno waxa leeyahay gudoomiyaha maxkamadda sare la bedelo si loo helo cadaalad anigu waxaan leeyahay oday Soomaaliyeed baana war qolada garsoorkana cadaalad sameeya baan leeyahay dadka waxaanay lahayn iyo guryo aan lahayn haysta ee looyarada u qabsaday dadka laaya looyarada u qabsana war Ilaahay ka baqa oo cadaaladda iyo midnimada iyo wadajirka iyo qaranimada Soomaaliyeed la tixgeliyo wala dhimanaya ayaama yar baa nabiga kaleey salaatu wasalaam 60 budalka jooga waynu dhamaanayna anna biraan dhimanaya adna saata maanta saako waxa la dalka cadaalad hal lagu soo celiyo cid kasto cadaalad darro ka cabanaysana Ilaahay baan u weydiinaya cadaalad inuu helo cabashada had iyo jeer wax soo noqdo Soomaalidu dhan ay og tahay dadaan naqaana iyo kuwa aan aqoon adaadahan ka dhageysanaba waa wax aad ugu badan xabashada garsoorka waxaan leeyahay garsoorku waa meesha kaliya dalka ka hagaagi karaya ama uu dalka ka dimi karaya dawladii Soomaaliya ee kacaanka itaalkii iyo awoodii aan lahayd ee Afrika oo dhan qaaska ahaa samaysatay waxa dumiyay cadaalad darro waxa way sideeda laba meelood oo dawladda u muhiimsan anu sana aaminsanahay siyaasadda arrimaha dibadda iyo siyaasadda arrimaha gudaha iyo waxa la iska daba wareegayo waxba soo kordhin maayaan dalka markuu wax noqdo siyaasad dhisi kartaa sideeda waxa muhiimka dawladda waxa weeye ciidamada qalabka sida oo lama taabtaana oo la fadhabara
oo nin aan wadan aan lahayn uusan wadan baahayn uusan calan balahayn oo iyadu muhiim ah iyo garsoorka labada haday hagaagaan waxay la tahay wadankan inuu israacaya maxamed daahir dulmidiid warbaahinta goobjoog muqdisho shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubbaland Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aadan Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah